hadalka madaxweynuhu xaqiiqatan wuxuu ahaa hadal xilligiisii ku soo beegmay munaasab ah hadal mas'uuliyadeed buu ahaa madaxweynuhu wuxuu fidiyey madal uu fidiyey indaargaradka guud ee Puntland siyaasiyiinteeda aqoonyahankeeda isimadeeda iyo magaranaysaay danayaasha reer Puntland ee siyaasadeeda iyo arrimaheeda danaya wuxuu ugu baaqay oo ugu yeeray wada tashi xaaladaha murugsan ee dalka Soomaaliya in loo maskax badsado oo maskaxda Puntland la tuujiyo si xal loogu helo Puntland sida aad ogtihiin ba waxay ahayd qayb kamid ah ama ay tahay qayb kamid ah Soomaaliya oo waqti badan iyo maal badan iyo naf badan u hurtay Soomaaliya sidii dib loogu yegleli lahaa oo dibka looga saari lahaa marka مسؤولية continuation wuxuu muujiyay madaxweynuhu mas'uuliyadii kaga aadanayd Puntland waligeed ay u taagnayd ee ahayd arrimaha Soomaaliya in la saxo si khaas ah wuxuu markan adeegsanayaa resource-ka Puntland ay leedahay ee xagga aqliga si talada loo baahiyo oo talo aqliga inta loo shiilo qaabkii loo wajihi lahaa oo wax loo sixi lahaa in laga tashado arinta waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inay guul Puntland u ahay isaguna in Ilaahay waafajiyo baan aaminsanahay saxna ay ahay shacabku arrimahan siyaasadda isku murugsan inta badan way soo noqnoqdaan aad bay ugu wareersan yihiin xal nooceeya in looga gudbi karo guud ahaanba khilaafkan siyaasadeed xukuumadaha kala duwan ee dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe inta isqabqabsigoodu aad u batay qaab nooceeya baad u aragtaa in looga gudbi karo arrimahan horta sida iyadaba in inaga Soomaaliyaana inaanu ilbaxnana way wanaagsan tahay hawadayada iyo hankayaga iyo hamigayaga iyo greedkayaga inaga baahidayada sida aan anagu rabno inay nahagto ma aha waa inay nahagtaa waxa aanu ku heshiino wax qofka Soomaaliga wax laga qoraa waa inuu leeyahay bulshada Soomaaliyeed markay wax ku heshiiso waxa lagu heshiiyo waa in la raacaa hadda sida aad ogtahay hadaan iyo halka geliyo sabab horta waxaan dawladnimada leeyahay hal awooyaashii aanu ka dhaxalay ma ahayna wuxuu ahaa nidaam laga soo inguriyay dalkan galbeedka dastuurada iyo heshiisyada iyo waxyaabaha noocaas oo kala ugu yaraan haddaanu qaadanay nidaamyada noocaas oo kala ah waxay ahayd in la observe garay in la raaco oo la qadariyo heshiiska bulshadu ay gashay waxa lagu heshiiyana laga soo baxo inta badan waxyaabaha la isku hayo waxa weeye khilaaf ka taagan heshiisyadii dastuuriga ah ee lagu soo heshiiyay ama dhamaystirnaan la'aan iyo waadixnimo la'aan xaggii dastuurka qodobadiisa ah marka waxay u baahan tahay si miyir leh inta loo fariisto sartu halka ay ka qurmaysaa halka weeye mar walba in wax la isla xalliyo waxa taa weheliya marka iyaduna muhiim ah in wax la isu dhibriyo dadkan waa kala dhintay waa la islaayay bulshadan balaaya isku dirtay shaydaan baa isku diray shakala shaki baa jira skepticism badan baa jira siyaasiga lama aaminsana marka bal salbugi inta la fariisto allana loo noqdo oo uu qofku ogaado tayda kaliya soconaysa inaanay ahayn qof walba Soomaalidu waa 12 milyan 20 milyan ku dhawaad generally marka la eego inta afka Soomaaliya ku hadasho dalka dariska marka lagu darana waa 230 milyan 40 milyan oo dhow qof walba tiinta haduu yiraahdo waa qaadanaya oo dhaqanka Soomaaliga uu noqdo aniga tayada soconaysa war waxba inoo socon maayaan waxaan isla ogolahay aynu isla qaadan ka wiye marka qaabka lagu heshiin karaa waxay tahay si miyir leh qof walba siyaasadda ku jira muddo kooban buu joogaya 10 sano ka hor dadkii siyaasadda ku jiray kuma wada jiraan maanta marka marba juruba gelaya oo ka baxaya qofka marka ku jiray waa inuu wax saxa oo wax hagaajiya oo uu ogaado waxaan in la leeyahay muddada uu joogana muddo kooban ay tahay marka wax badan in la dhibriyo ayaa muhiim ah oo wax badan la isu xiriyo oo wax badan la isu saburo oo aan la isu fiirsan oo qabyaaladii iyo wax yar ilka lahaa aan wax walba lagu cabirin waa intaa weeye xigmadda dhabta ah sida aadiguba ka dhawaajisay waxaa jira dhibaato badan oo laga marayo dhamaystirid la'aanta dastuurka iyo awoodaha oo aan kala qeexnayn qaybtood waxaad sheegtay in loo baahan yahay in la wada fariisto oo xal la helo haddii aanba dastuurkiiba lagu heshiinin xalka la heli karo wada fadhigahay see kula muuqataa inuu noqon karo waa sababtu waxay tahay wax walba heshiis oo la galaayo waa nooc dastuuri ah heshiisku waa inuu shaqeeyaa haddaanba wixiiba dib loo raacayn oo aan uusan meel ku kaydsanayn oo aan la oranayn maalinta heshiiskaas aanu gallay kaas bay tahay inuu fulo oo dadku uusan xirayn haddii aan qowlba ina xirayn oo wixii meesha jooga waxba aanaga ina ka xirnayn waxba inoo shaqayn mayaan waana inta badan hadda khilaafaadka kii u dambeeya hadda taagnaa arrinta waxbarashada ka taagnaa wuxuu ahaa in heshiisyadii oo laga baxay oo la laalay buu ahaa iyo wax la mid ah
shir ayaa jira madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku baaqay 15 March shirkan oo kale waxa ku baaqay sidoo kale madaxweynihii ka horeeyay isaga Dweli Maxamed Cali Gaas wax badan oo qabsoomay ma jirin maxaa kaga duwanaan karaa waa shirkaas shirka hore waxaan rajaynayaa qaabka hadda madaxweynuhu shirkan ugu baaqay inuu ka duwan yahay kii madaxweyne Cabdiweli uu ku baaqay madaxweyne Cabdiweli kiisu crisis-ka hadda dalka ka taagan oo qaabkan la isu hayo uma taagnayn waxaad moodaa inuu iska ahaa kaasi beauty contest oo ah wasaaradaha lala xisaabtamaya iyaga la eegaya bal wixii ay qabteen waxaana eegaya dad kooban oo isla wasaaradihii kamida marka kind of caru ahaa kaasi baa la oran karaa bimacnaa kelima aan loo ogolayn dadka elite-ka aqoonyahanka inay ka qayb galaan saxaafadu ayan badanaa maaragtay iska yaro biased ah lagu wari marka nooc ujeedo gaar oo kale laga leeyahay buu ahaa habka hadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu u dhigay wuxuu ahaa hab kasal ballaaran oo more comprehensive ah ujeedka laga leeyahay uu aad uga mugweyn yahay oo dadka reer Puntland oo dhan runtii ka dhigay wax dareenkooda aad u kiciya adalanin ku diray jirkooda micnaha hal markiciyay oo runtii wax aad loogu baahnaa in wax badan la iska weydiiyo issues badan oo laba dhinac ah home front iyo national front micnaha gudaha haddii la doono haba la kala qaybiyo oo wax laga yaabo inaan waqti loo wada helin iyo waxa ina kaga beegan heer qaran labada arrimood waxayna kala gudboon in wax la iska weydiiyo marka waa huba in sida hadalka madaxweynuhu u dhigay anagu waxaanu xukminaynaa daahirka baadinka ilaahay baa ku shuqul leh sida madaxweynuhu u dhigay dadkuna u fahmeen haddii uu yahay shirkaasi wuxuu ahaanayaa shir loo aayo oo very historic ah isla markaasna weliba ay tahay waxyaabaha ugu horeeyo shirkaa ka soo baxaya inay ahaato in shirkan uu aado continuation ugu yaraan sanadkiiba madaxweynuhu milestones in loo sameeyo mar la isu yimaado shirka noocaas oo kale once every year oo 5 sano uu joogo uu magaranaysaayay 5 jeer shirka la isu yimaado wax badan baa ma garanaysaayay Puntland ugu xalismaya Soomaaliya ugu xalismaya waad garanaysaayo maamaha Soomaaliyeed baa talo adaa ku nool iyo kuguma noola marka haddii talada la badsado oo cuquusha la badiyo caqliyada la badiyo de hal qof meesha uu joogo waxa hal caqli baa yaal hal caqlina intuu sii karo si garan kartaa cuquusha oo la badiyaay waxay keeni kartaa wax badan in la ogaado caalamkuna ilbaha ahna sida uu ku shaqeeyaa waa sidaas weey meel walba think tank iyo elite iyo kulamo noocaas oo kale symposiums iyo forums iyo waxyaabahaas jira marka waa huba arintani in ay ka duwanaan doonto sidii hore haddii ujeedada sax ah sida aanu mararka qaar waxaan isla Soomaaliga tago ma la isku afgartaaye sida madaxweynuhu uu dhigay annaguna aanu fahanay ummadda reer Puntland iyo Soomaaliga ay u fahantay haddii ay sidaas ay arrin u yihiin dawladda federaalka Puntland ba labaduba khilaafkoodu uu soo noqnoqdaa inta badan waxa muuqata in Puntlandna nidaamkii federaalka ah leedahay annaga dhisanay oo sida aan u baahanahay hadaysan u socon wax badan kama soconayaan dawladda federaalka ayna quursi jiro labada dhinacba inay midba dhinac in uu quursanayo hadaba arrimahaasi iyagu ma kula muuqata kuwa meesha taagan waxaad moodaa arrintu laba wajiib ay leedahay waa dhinaca federaalka ee xaliyan maanta iyo xilliya la soo dhaafay midna waxa uu Puntland xaaladeeda haddii aan ku hormaro dhinaca federaalka waxa weeye madaxda hadda joogta waa madaxan federaal ogoleen way waa lagu doortay qof dadaan ogoleen wixii iyaga lagu doortay aan ku degdegayo conclusionka gaare madaxda federaalka ra'iisul wasaare Khayre madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaqiiq waxa weeye daacad kama federaal marraba kuma shaqeeya waana laga garan karaayo ficilada waxay ka qaylan dheeriyihiin baliyada ama ka hadal dheeriyihiin hadallada erayada waxa weeye waxyaabihii dalka intii 3 sano hadda ay soo hayeen ay sameeyeen intuba waxay ahaayeen anti federalism wax federalism ka dhanaxday ahaayeen Puntland iyadu arinta ciladaha waxyaabaha ku leedahay waxa weeye inagu waxaanu dhisnay machine weyn oo adag oo dabadeedna waxaanu sii deynay controlkiisii shuruuc baan loo sameyn lagu xakamayo xakamo kale aan loo sameyn
dad ma garanaysayay garanaya waxa ujeedka loo diray ama ku shaqaynaya baan meelihii loo baahnaa oo xaggii federaalka ah aan la geyn ilaahay kuma sina diide waqti badan baan lagu bixin kulamo hore iyo ka tashiyaan la isugu iman hadda meesha waxaa samaysmay mishin aan cidina xukumin oo iskii u socda oo ujeeddo isagu uu leeyahay oo gaara marba qoladii fuusha waa sidii gaari marba darawalku dhinacuu doono uu la aadayo oo ujeeddo ka dambaysa aanay jirin marka nidaamkii federaalka wuu koray hadda wuu kobcay haddii uu soo kobcay wuxuu la soo kobcay wax wixii markii hore looga gol lahaaba aan ahayn puntlandna eedaasi qayb bay ku lahayd sababtoo ah ma ayan gelin wixii looga baahnaa oo nidaamkan federaalka inuu saxnaado nidaamkan federaalka ahi inuu leeyahay clear cut edges oo ah shuruuc iyo qawaaniin hegta oo toosa oo la isku ogyahay oo dhammaystiran iyo cid hubisa shuruucda in la raacayo oo represent garaysa isla markaasna sii tadawurisa oo aan meeshii loo dirsan taasaa waxay keentay marka dee in waxa maanta dhacaya ay dhacaan oo dowladdii federaalka ayaan ahayn dowlad federaala puntland ay tabayso oo iyada laftigeedii iyo dalkii intiisa kaleba statesiisa kaleba ay dhibanayaal u noqdeen mishiinkii giantiga ahaa oo federaal la oran jiray oo la sameeyo aan xakamaha lahayn marka aad fiirisid puntland iyo nidaamka federalismka puntland iyada ayaad dooratay nidaamka federalismka lala qaatay haddana mar walba qaylada puntland ee nidaamka federalismka waa ay taagan tahay kula muuqata puntland aftarkeedu inay maali aqoon la'dahay nidaamkii ay iyadu ku dheganayd oo hadee puntland waxaad moodaaba haddaan si kale u dhigo fuusta madow wax ku jiro aan la garanin inay dilindileynaysay because nidaamka federaalka puntland inta ay kusoo bixisay cid kusoo bixisay male iyada un baana gadaysay oo waday oo dalka kaloo dhan oo diidan oo aan ogoleyn baa la ogoleysiiyey hadda puntland ha soo wada federaalke maxaa federaalka fuustadan ay dilindileynaysay maxaa ku jiray waa run federaalka inuu xal ahaa madbuwi inuu soomaaliya xal yahay federaalku laa shak laakiin de federaalkii dadkina waa in la fahansiiyaa puntland inay uga harto federaal baa la qaatay micnuhu maaha tusaale hadda haddaan kuusoo qaato baasaboorka iyaga soomaaliga oo documentiga ugu muhiimsan ummadda soomaaliyeed ay leedahay shaksiga muwaadinka soomaaliga uu leeyahay waxaa ku qoran jamhuuriyadda soomaaliya firadaya dowladdii hore waxaa ku qoran jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya wuxuuna ahaa titleka qaranka maanta titleka iyaga qaranku waxa weeye jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya baasaboorka iyaga kuma qora maalin puntland kama hadal oo maalin wakiilada aan halkaa u dirsanay kama hadal oo maalin baarlamadaas kama hadal firsadiya ishugu marka wuxuu yahay puntland waxan iyadu ay waday laftigeeda ma ayan gelin sidaan marka horeba u sheegay dagaalkii loo baahnaa inay geliso federaalka maadaama iyadu ay ugu fahansanayd maadaama iyagu ay waday maantana cid ka fahansan inay jirto anigu umalaynayo mandaqad puntland nidaamka federaalka ka fahansanin ma jirto laakiin shacabkeedu waxay fahmi karaan xaddiga dowladeedu ay fahansiiso oo eliidkeedu ay fahansiiyaan miidiyaha puntland baan coverage badan ku samayn dowladda puntland baan ma garanaysaa dadaalkii la rabay iyo dhaqaalihii la rabay iyo gaarsiintii la rabay hadalkii shirarkii la rabay ummadda soomaaliyeed iyo shacabkeeda inay gaarsiiso nidaamkan federaalka sida uu dan ugu yahay baan la gaarsiin ilaa shacabkeedii shaki laga geliyey micnaha inagu waa leenahay khaaladka ah in aanan u dadaalin oo aanu horay u dhaqaajin nidaamkii federaalka oo aanu kaga harnay keliya dowlad baa la sameeyey madaxweyneyaal baa doortay madaxweyneyaashan imanaya weli dadkan raggan imanaya oo xukunka qabanaya qaarkood waxay ka soo jeedaan mandaqadihii aan markii horeba laga ogolayn nidaamka federalismka waxayna ku shaqaynayaan qaabkii aan loo ogolayn ee ma ogola federaal kama dhanacsana xasan sheekh baan ogolayn labadii sano u horeysay maalin aan laga maqal afkiisa federaal ilaa markii dambe uu ku xasbanaaday war waxaadan huri doona horaa loo yeelaa farmaajaan ogolayn ninka la yihahdo khayraan ogolayn ragga kaleo meesha marayo golaha wasiirada aadaan wada ogolayn ragga ogolaa juxaay oo kale u ahaa leedaaf waa la tuuray maryan qaasim baa kamid ahayd oo iyadana sidoo kaleeto waa la tuuray groupkii noocaasa ay ku shaqayn jiray aragtiyaha ama aaminsanaa saasaa loo wada tuuray saboortana kama ayan helin dowladoodii puntland oon oran annaga nagu mathalaan nidaamka noocan oo kalenta ah
xubnaha iyagii baarlamanka noo masalaya aqalkii sare iyo aqalka hooseedaan iyagu laftigoodu aad moodaa inay aad uga gaabiyeen oo odaga cabdiraxmaan oo isaguna nin da-aana runtii respect badan lelo dastuurkiisa ilaashada oo ma garanaysaa lagaba yaabo inaan hadda tiimka dowladda halkaa mare ayn aad ugu wada xirayn unbaad arkaysaa wax ka hadlaya iyaduna maaragtay ayan aad usii tabar badnayn dowladdaa la rabaa fadhida puntland iyadoo adeegsanaysa shacabkeeda iyo eliidkeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo gruubadan mafela iyo aqaladeeda ma garanaysaa aqalkeeda baarlamanka iyo guud ahaan in ay u shaqayso oo wax badan ay geliso nidaamka federaalka marka laga reebo hawsha domestiga ee dalka dowladda puntland shaqada kenya u taalla waxaa weeye heer qaran nidaamka federaalka inuu shaqeeyo wax kale haday isku mashquulisaa waa khalad wey khilaafka ugu culus inta badan wuxuu kasoo noqnoqdaa xagga wasaaradaha tusaale xukuumaddii cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu ka taagnaa korjoogteen wasaaradood maantana wuxuu ka taagan yahay isla wasaaradihii oo krayska ugu badan oo haatan ka qarxay saxa loogu heli karaa arrinta horta overlap baa jira dadka usamauba fiirsan war nidaamkan federaalka awoodan waa la deligeliyo horta awoodda dalkan u dambaysa technically waa in la fahmo waxaa iskale shacabku wuxuu doortay maamulo iyagu ay leeyihiin heer tuulo heer degmo heer gobol heer dowlad goboleed heer federaal baa loo soo gudbi fiirso wasaaradahan overlapka nidaamkan federaalka ah wasaaradahan ay leeyihiin badankooda loomaba baahnaynba maana la isma weydiin arrinta iyada wasaarad caafimaad oo federaal ah maxaa lagu samaynaya وزارة waxbarasho oo federaal ah maxay tahay hawsha ay leedahay naafi maxamale federaalku waa inuu lahaadaa wasaaradda arrimaha dibadda waa inuu lahaadaa bangiga dhexe waa inuu lahaadaa wasaaradii gaashaandhigga waa inuu lahaadaa few things like that lacagtii iyo ciidankii iyo siyaasadda arrimaha dibadda mainly intaas iyo xoogaa yaroo kale loo igbaday inta kale waxaa iskale wasaaradaha maamulada gobolada iskale coordination haddii loo baahan yahay wasaaradii coordination loogu baahdo heer dhexe oo khafiifa ayaa loo samaynaya laakiin howlaha kan cidda loo adeegayo waa shacabka hoose dowladdani sideedaba federaalka waxaa loogu talagalay inay noqoto wejiga ummadda soomaaliyeed ee caalamka hadday ahaan lahayd diblomaasiyadda iyo hadday ahaan lahayd difaaca xuduudaha howlahan kale oo dhan waxaa iskale maamul goboleedada haddii dowladda dhexe intaas wasaarad ay yeelanayso maxaa loogu baahaya dowlad goboleedada maxay tahay xigmadda ku jirta marka hore waayahay runtii waa waxyaaba aan la isweydiin weye marka khaladku wuxuu ku jirayaa number one markii hore sidii aan sheegay dowladdii dhexe oo federaalka ahayd oo aan federaalnimadii ogolayn oo wasaaradaheedii de ay rabaanba inay cunaan kuwa kan halkan iyo authoritigii hoose oo shacabku uu lahaayo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay laqaan oo ay tirtiraanba ay doonayaan oo madaxda isaga gelaysa siyaasadooda ay sidaa ahayd baa ugu horeeya iyo iyaga dowladahan xubnaha ka ah laftigooda oo aan fahansanayn nidaamkii federaalka khilaafka ugu culusaatan wuxuu ka taagan yahay shahaadayda ardayda puntland arday badan ayaa waxaa niban shahaadada saxa loogu heli karaa baad aragtaa adiga ka had deertan shahaadooyinka yaga maraykanka laga aqoonsanaa arday baan ognahay maraykanka jaamacada kaga galay ingiriiska kaga galay dalalkan scandinavianka kaga galay australia iyo new zealand kaga galay shahaadada puntland waa muctarif laakiin dhibka jira wuxuu yahay puntland waxaad moodaa sida maamul goboleedyada kalenta inay dheri iyagu madaxa la galeen digsi inay belaha oo dheri waxaa koonfurta soomaaliya dhaqan laga bahal yaroo laga isticmaala baa la yidhahdaa inta badan waxna lagu karsado marka riyooday madaxa gashadaan geesaha dib ugalama soo bixi kara waxaad moodaa inaanu madaxa gashan washahaadada iyo waxbarashadan iyo maxaa federal hoosgeeyay marka hore khalad bay arrintaa iyada in laga fiirsado wey federaalka ka dowlad ahaan puntland baa ka tirsan sooma way ka tirsan tahay laakiin de roolkaas ma leh puntland ma lahaan karto ciidanka qaranka soomaaliyeed ciidan daraawiishay leedahay iyo boolis bay leedahay iyo ciidan nabad sugidda ciidanka militariga waxa iskale federaalka puntland wasaarad arrimo dabadeed male laakiin waxay leedahay wasaarad xiriir caalamiya oo temporarily u shaqaynaysa inta wasaaradda arrimaha dibadda caadiyan ay ka shaqaynayso hadhowdiina doorka qorsheynta qaadanaysa wasaaradda waxbarashada ee puntland iyadaa u taagan howlaha kan shahaadadana maamul goboleedada dowladaha maamulada xubnaha ka ah federaalka waa la istandard garayn karaa shahaadadooda iyagaana bixinaya xataa haddii heer dhexe iyagu waxay ku heshiyaan horta waa wax federaal ah fiiriya maamuladan xubnaha ka ah dowladda dhexe wixii ay ku heshiiyaan waa wax qaab federaal ah loogu heshiiyey haddii marka shahaadooyinka ay ku heshiiyeen wasaaradaha waxbarashada ee dowladaha xubnaha ka ah heer federaal inay iyagu u madax banaanaadaan weeye haddaan sidaa laga dhigina dee sidaa haddeer goodax dare iyo federaalku farmaajoya khayr ay u siyaasadeen loo siyaasadaysadaya intaas oo 100 oo kun ama kun oo ardaydaana dhibaata ku dhacaysa oo dhibanayaal noqonaya iyo waalidiintood
arrinta iyada khalad bay ahayd haddeerna waa khalad haddana waxaan qabaa barnaamijka isaga ah in cidda hababka waxbarashadu ay nagala dhaxayso dalalka aan u dirsan jirnay oo dhan iyo cid kastoo kale sida international community waxaan loogu yeero in la ogeysiyo inayn jirin shahaado lagu midaysan yahay oo federaal maamul goboleed walbana iskii ugu bixinayo shahaadada maxaa puntland maxay ku khaldan tahay dowladda federaalka ahina maxay ku khaldan tahay sidee si xal looga gaari karaa khaladaadkaas waxaan rabay puntlandna federaalka insertskii ama wixii ay ahayd inay geliso ayay gelin dadaalkii ay ahayd inay geliso oo niyad wanaagga ahaa oo shaqo hufnaanta ahayd oo tadawurintiisii iyo sii horumarintiisii ahaa ayay gelin dadkii sax ahaana uma ayan dirsan meeshaas inay ka matalaan waana dhab way taa in dowladda federaalka ana ciladeedu weli hadda sidan kuma istaagi doonto sababtoo ah dadkeenu weli federaalkii kama dhaadhicin door walba waxaa qofka waxyaabaha ay tahay in laga jeegreeyo waxa weeye marka horta la dooranayo ma leeyahay qualitieski hogaamiye masal aaminsan yahay principleka lagu dooranayo ee ah dalkan inuu yahay dal federaali ah hadduusan qofku sida aaminsanayn in la doorto baa marka hore marka iyay tahay cidda dooranaysa waxaa weeye waa representationkii ka yimi maamul goboleedada dadkan marka masalaya maamul goboleedada ee baarlamaanka yimi laftigoodu dad diyaarsan ma yihiin oo waxa ay dooranayaan iyo waxay ka shaqaynayaan iyo waxay qaban doonaan dad yaqaana ma yihiin iyaguna mise waxa weeye dad sida caadiga la oran jiray caruurta ha ka biisho iyo ma garanaysa sidaa iyo waxyaabo kale wixii xilka lahaayo dadka lagu dooran jiray in arrimaha haddaan laga taxadarin oo aan laga korin oo khaladaadkeenu arkayno then waxa weeye waxaanu ku celinaynaa isla processkii waxaanuna filaynaa natiijo ka duwan inoo timaado mana iman doonto weligeed sidaa daraaddeed puntland waxaa laga doonayaa waxyaabo badan inay hoos u fiiriso oo ay hufto dowladda federaalku hadda dee kolley waqtigoodii hadda tiimkan hadda jooga waqtigoodii iskaba dhamaa inkastoo qaabka hadda ay u wadaan uu kasii khatar badnaan doono waxa hadda ay sameeyeen khaladaadka hadda ay galeen waxaa kasii khatar badnaan doona sanadkan soo socda khaladaadka ay geli doonaan runtii ay tahay in aad loo feejignaado loona diyaar garoobo sababtoo doorashada oo dhan in la qabso in ma garanaysaa xubnihii lagu shufo waxaan haddeer laga sameynayey galmudug ama laga sameeyey hirshabelle ama laga sameeyey koonfur galbeed ama puntland laftigeeda ay isku dayeen in la inqilaab bay ahayd wax kale ma ahayn ama jubbaland la isku dayay in la inqilaabo waxa weeye is not easy waa waxa ay doonayaan absolute inay ka sameeyaan waa si alamintayn wax la doonaya in laga sameeyo doorashada federaalka arrintaaydan aad baan uga digayaan marka iyagu bedelaad male uma malaynaya inay wax iska bedelayaan sidaas doon waxba ka bedeli doonaan I don't think ilaahay baa bedeli kara laakiin u malaynaya 3 sano kusoo dhamaysteen sanad baa u dhiman sanadkaasna wixii u soo gogol xeerayay injineer xalka aynu gudubno ugu dambeyntii adigoo aan dhinacna markaan eedaynayn maxaad xal u aragtaa xal waxaan u arkaa sideedaba inaynu markii hore sidii aan ku bilaabay isfaham inuu yimaado si miyir leh oo caqli leh qof walba oo mas-uul inuu fikiro heer federaal iyo heer puntland in la xeeriyo dantan ka wada dhaxaysa in la ogaado qofna inuusan meeshan sii fadhiyi doonin la bedelaye taariikh baa isqoraysa taariikhda inay wax ku darsadaan hagaagsan puntlandna inay wax badan oo soomaalinimo way u shaqaynaysaa inay u shaqayso dadaal badan ay ku sii bixiso xagga federaalka ana inay ogaadaan bahashu inaanay muqdisho iyo intaa yarta oo federaalka xoogaa koombada yarta inay ku koobnayn soomaali oo dhan bahashan ay wax ku leeyihiin resource kan badanna ayaan iska dayicin puntland hadda meel federaalku ay dayici ka dhamaa waa dhulka ugu weyn oo ay ku faani karto in nidaamka dawliga uu ka shaqeeyo oo federaalka hoos yimaada marka inay taa laftigeeda ay ka faa'iidaysto marka in caqligu wada shaqeeyo oo ma garanaysaa heshiisyadii iyo nidaamkii dastuurka iyo wixii la isku raacay dib loogu noqdo ayaan anigu ku talin lahaa